بسم الله الرحمن الرحيم. caawa waxaanu joognaa mid ka mid ah maqaayadaha ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. sidaad hore ula socoteenba shir jaraa'id oo ka hor maalintii Ramadaanka uu qabtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu kula hadlay dhammaan goobaha ganacsiga gaar ahaan maqaayadaha iyo goobaha iyagu loogu bartay in lagu gado ama lagu iibiyo ama lagu isticmaalo waxyaabaha maandooriyaha. gudoomiyaha wuxuu u sameeyay ciidan gaar ah oo la dagaala anshaxa iyo aadaabta magaalada Muqdisho. ciidankaas caawa oo habeenkii saddexaad bisha Ramadaan waxay sameeyeen howlgalkaas oo laga sameeyay maqaayadan aan caawa dhex joogno. waxaa lagu soo qabtay maandooriyo kala gedisan oo noocyo kala gedisan oo isugu jira haddii ay noqoto xashiishka, khamriga iyo maandooriyo kale buda ah oo runtii magaalada Muqdisho aad ku cusub oo kokaayina. ciidamada waxay ku wareejin doonaan laamaha amniga qaybahooda u xil saaran in lagu wareejiyo. sidoo kale goobtan waa la xiray, ruqsadii ay ku ganacsanaysana waa lagala noqday sidoo horeba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho awaamir ugu soo saaray in goob alla goobta lagu qabto waxyaabaha maanka dooriya lagala noqonayo ruqsadii ganacsiga. caawa laga bilaabo goobtan waa lagala noqday. waxaan u mahad celinaynaa taliska ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar gaar ahaan qaybta loo xil saaray anshaxa iyo aadaabta magaalada Muqdisho, taliyaha howlgallada ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar oo iyagu fuliyay howlgalkan caawa ee lagu qabtay maandooriyahaasi. waxaan ugu digaynaa dhammaan goobaha maqaayadaha iyo goobaha ganacsiga inay ka waantoobaan inay u bareeraan iibinta waxyaabaha maanka dooriya, weliba iyadoo lagu jiro bil barakeysan oo Ramadaan oo wax walba la xaarintimeeyay in lagu dhiirado in la gado waxyaabaha maanka dooriya oo goob public ah lagu dhex gado dadna markaas ay imaadaan halkan. runtii wax diinteena iyo dhaqankeena suuban aqbalaysa maaha. gudoomiyahana hore ayuu ugu digay caawa laga bilaabana goobtan way xiran tahay.